Bismillahirrahmanirrahiim. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa channelka Xogta Media. Waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diradda ku saari doono xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya iyo siyaasadda guud. Maxay yihiin arrimaha keenay kacdoonka ka dhanka madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo? Falaqeyn ayaa daawadayaal ku sameyn doona warbixintan ayaan idinkugu soo koobi doonaa warar arrintaasi ku aadan midowga Afrika. Waxa uu ka hadlay doorashada Soomaaliya, haddaba muxuu ka yiri? barnaamijyadeena ayaa daawadayaal idinkugu soo gudbi doona falaqeyn arrintaasi ku aadan. Qodobadaas ayaana warbixinteena idinkugu soo koobi doonaa daawadayaal faahfaahintooda. Ha yeeshee inta aanan guda gelin, waxaan daawaday ka dalbanaya oo aan ka codsanayana muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka oo furanaya gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. markaana daawada waxaad ku soo dhawaataa warbixinteena. maxay yihiin arrimaha keenay kacdoonka ka dhanka madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo? dibadbax ay shacabka Soomaaliyeed ku muujinayaan dareenkooda ku aadan hoggaanka fashilmay ayaa lagu wadaa in dhowaan uu ka dhaco caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho. dadka dibadbaxaya qaarkood ayaa nala wadaagay waxyaabaha ku qasbaya in ay ka qayb galaan banaanbaxaasi, waxaana qodobada ay ku dhaliilayaan Farmaajo oo aad u fara badan ka mid ah gabadfaladii uu geystay intii uu xukunkiisa jiray iyo muddadii uu waqtiga ka dhacay intaba. waxyaabaha bulshada ka caraysiyay waxaa laga xusi karaa dhiibistii Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax uu u gacan geliyay Itoobiya bishii Agoosto sanadkii 2017, waxaana xilligaasi isaga iyo xukuumaddiisa ay ururka gobonimo doonka ee ONLF u aqoonsadeen argagixiso. Ekraan Tahliil Faarax oo ahayd gabar daayar ah oo ka shaqeynaysa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa la dilay. ehelkeeda oo la tusi waayay meydkeeda waxa ay dilka gabadhaasi ku eedeeyeen Farmaajo iyo saaxiibkiisa siyaasadda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo markaas ahaa taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA. hooyada gabadha oo xiriir kala duwan la sameysay Farmaajo uu u awoodi waayay jawaab niyadda u qaboojisa, waana arrinta walwalka ugu badan ku abuurtay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Itoobiya oo 30kii sano ee ugu dambeysay faragelin ku haysay arrimaha Soomaaliya ayuu xiriir gaar ah la yeeshay, iyadoo xogaha aan helayno ay sheegayaan in uu damacsan yahay in uu u gacan geliyo dekedaha dalka qaarkood. waxaase qorshahaasi hakiyay culayska siyaasadeed ee dalkaasi ka taagan iyo dagaalka xukuumadda Addis Ababa sanadkii la soo dhaafay kula jirtay TPLF. faragelin qaawan ayuu ku sameeyay maamul goboleedyada dalka, wuxuuna talada ugu sareysa saaray rag uu isagu wato. gulufkii uu u galay ee ka dhabeynta qorshahaasina waxaa ku daatay dhiig fara badan, waxaana la ogaa wixii ka dhacay magaalada Baydhabo oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Guriceel iyo Beledweyne oo ay weli xiisad ka taagan tahay. wuxuu kala dhambalay isku duubnida maamuladii diiday in ay u hoggaansamaan awaamirtiisa sida Jubbaland oo u kala qaybiyay Gedo iyo Kismaayo. wuxuu sidoo kale kala dhantaalay quwaddii ciidankii maamulka Puntland isagoo furin ka dhigay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kadib markii uu saraakiisha BSF ku qanciyay in ay ka hor yimaadaan Saciid Dani oo ah madaxweynaha maamulkaasi. muddadii 5 sano ahayd ee uu hayay talada dalka waxaa xirnaa inta badan wadooyinka magaalada caasimadda ee Muqdisho, heer la gaaray in meydadka gaari gacan lagu soo qaado, halka haweenka uurka lehna ay dhiigbax u geeriyoodaan kadib markii la waayay waddo uu u soo maro gaadiidkii isbitaalka gaarsiin lahaa. amniga caasimadda ayaa sii xumaaday muddadaas, waxaana tiro beelay dilalka qorsheysan iyo qaraxyada dhacaya, wuuna ka gaabsaday ka hadalkooda, taas oo shacabka u muujisay in uusan wax dareena u haynin waxyeelada ay muteen. waxaa sidoo kale kordhaya dilalka loo geysanayo darwalada mootobajaajta, kuwaa oo qaarkood joojiyay shaqooyinkii ay abuurteen xaalad amni awgeed, halka kuwa iminka ku shaqeeya mootobajaajtana ee welwel iyo sidoo kale walbahaar cabsi wata ay la nool yihiin. dalka in uu doorasho ka qabto ayuu ku guuldareystay, wuxuu ku dhawaaqay muddo kordhin ay ka diideen qaar ka tirsan ciidamada xoogga oo la magac baxay Badbaado Qaran. wuxuu arrimaha doorashada iyo amniga u wakiishay ra'iisul wasaarihiisa, kumuusan qancine wuxuu uga daba tegay taladii uu ku wareejiyay. bishii December ee sanadkii tagay 2021
ayuu sameeyey mid ka mid a ficiladii ugu xumaa ee uu ku dhaqaaqo kadib markii uu isku dayay in uu afgembi ku qabsado xafiisyada ay xukuumadda xilgaarsiinta ku leedahay madaxtooyada villa Soomaaliya. Inkastoo laga hortagay, haddana waa mid bannaanka keentay hadafkiisa ah in uu dalka ku qabsado awood ciidan. Arrimahaasi iyo kuwo ka badan waa waxa shacabka Muqdisho ku riixaya in ay muujiyaan dareenkooda ku aadan taladii lagu aaminay Farmaajo oo la og yahay niyad wanaagii ay ku soo dhaweeyeen 8 Febraayo sanadkii 2017, waxaana dadka caasimadda ku nool uu halku dhigoodu noqday mahmaadii ahayd sidaan kuugu lisay igumaad hambeyn. Midowga Afrika ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay doorashada Soomaaliya oo uu Farmaajo hor istaagay habsami u socodkeeda. Midowga Afrika ayaa bogaadiyey qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee lagu gorfeeyay arrimaha doorashooyinka dalka. War qoraal ah oo uu soo saaray Muuse Faki Maxamed oo 14 Maarch 2017 loo doortay gudoomiyaha guddiga Midowga Afrika ayuu dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ku dhiirigeliyay si aan baqaadida go'aanadii ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran. Gudoomiyaha ayaa dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka ugu baaqay in laga dhabeeyo dhaqangelinta qodobadii lagu heshiiyey, wuxuuna hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in 25 Febraayo ee sanadkan 2022 lagu dhameeyo doorashada aqalka hoose ee dalka. Midowga Afrika ayaa dalbaday in la ilaaliyo xasiloonida yar ee ka jirta Soomaaliya, iyagoo soo jeediyay in la kordhiyo wadahadallada dhinacyada siyaasadda ay ka yeelanayaan arrimaha doorashooyinka, taas oo baajin karta gacan ka hadal. Waxay sidoo kale tilmaameen in laga waantoobo boobka iyo musuqa lagu eedeynayo doorashooyinka Soomaaliya, waxaana ay ku taliyeen in doorashada ay noqoto mid ku dhacda hannaan daahfuran oo lagu qanci karo. Tan iyo markii ay dib u dhacday doorashooyinkii la filayay ee dalka, waxaa kordhay culeyska iyo cadaadiska dhinacyada siyaasadda Soomaaliya uga imaanaya beesha caalamka, kuwa oo waqtigan kala guurka soo saaraya qoraallo ay ku dalbanayaan in dalka ay ka qabsoonto doorasho cadaalad ah oo ku soo idlaato waqtigii golaha wadatashiga qaranku ay go'aamiyeen. guud ahaan daawadayaal waa inaga warbixintii aad ka daawanayseen channelka Xogta Media aan ku leenahay YouTube-ka. haddii aad daawatay laakiin oo subscribe inoo saar channelka fura gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inoogu reeb. tan iyo warbixintan mid lacaynana inta dib isugu kulmi doono. nabadgelyo.